Salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada tabinteena wararka maalinimo oo aad ka daawanaysaan Haga Media. Jimco wanaagsan, qodobada warkeena aad ku daawan doontaan ayaa waxaa ka mid ah madaxweyne Farmaajo oo mar kale shir u cilaamiyay shanta madaxweyne maamul goboleed iyo Puntland oo jawaab bahdil ah siisay madaxweynaha Ethiopia oo mar kale xaalad xun gashay iyo xasuuq la sheegay in qoomiyadda Oromada ay bilaabeen. Villa Soomaaliya oo ciidan culus ku daabulaysa soodinta Puntland iyo dagaal laga cabsi qabo in halkaasi uu ka qarxo. Shirka beri ee Afisiyoni ka furmaya muxuu uga duwanaan doonaa shirarkii hore? Xog gaar ah ayaan idiin haynaa. Iyo gal dacwadeed culus oo laga gudbiyay madaxweynaha muddaxileedkiisu dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. haddii ay tahay markii ugu horeysay oo aad na soo booqatay nagu soo biir, subscribe saar, gambaleelka furo, like, share iyo qaybta commentiga in fikirkaaga aad inoogu reebtaa naga ilaabin. markastana waxaan kaga mahadcelinaynaa sida dhiirigelinta aad inoogu samaynayso. waa maalinimo Jimco ah, taariikhduna ay ku beegan tahay 2 bisha Abriil sanadka 2021. warkii oo dhan aynu ku horeyne waxaa madaxweynaha muddaxileedkiisu dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo mar kale shir uu isugu yeeray dhammaan dhinacyada hoggaanka Soomaalida gaar ahaan shanta maamul goboleed, iyadoo durbadiiba arrintaasi jawaab kulul ay ka soo saartay Puntland oo jawaab bahdil ah siisay madaxweynaha ayaa iclaamiyay beri oo Sabti ah in shanta madaxweyne maamul goboleed ay isugu yimaadaan xerada Afisiyoni, isla markaana diiradda lagu saari doono shirkan xal u helista arrimaha la xiriira tabashooyinka dhinaca doorashada oo ay kala qabaan madaxda maamul goboleedyada iyo weliba dowladda federaalka Soomaaliya. waxaa lagu waramayaa in arrintan ay ku timid cadaadis xoog leh oo madaxweyne Farmaajo uga yimid dhinaca beesha caalamka, taasi oo madaxweynaha loogu sheegayay in qasab ay tahay in uu isugu yeero dhammaan madaxda maamul goboleedyada si xal looga gaaro ismariwaaga dhinaca siyaasadda. laakiin madaxweynaha markii uu soo saaray waxaa durbadiiba arrintaasi naqdiyay oo si bahdil leh madaxweynaha ugu jawaabay maamulka Puntland. war-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska madaxweynaha maamulka Puntland Siciid Cabdullaahi Dani ayaa lagu soo dhaweeyay shirka la filayo in beri oo Sabti ah uu ka furmo xerada Afisiyoni ee ay soo qaban qaabisay beesha caalamka sida hadalka ay u dhigeen Puntland, kaasi oo ay yeelanayaan madaxda dowladda federaalka iyo madaxda maamul goboleedyada. qoraalka ka soo baxay madaxtooyada Puntland ayaa lagu yiri dowladda Puntland waxay soo dhaweysay dadaal ay waday beesha caalamka oo ku saabsan sidii loo xalin lahaa caqabadaha ku xeeran arrimaha doorashada, waxaana la isla gartay in Sabtida 3 bisha Abriil 2021 ay madaxda dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka Soomaaliya isugu yimaadaan shir hordhac noqda shirka wada tashiga ee arrimaha doorashada. qoraalka Puntland ayaa sidoo kale naqdiyay qoraal ka soo baxay madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo uu ku sheegtay in uu shir isugu yeerayo dhammaan madaxda maamul goboleedyada. madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa mar kale isugu yeeray madaxweynayaasha shanta maamul goboleed iyo gobolka Banaadir inay shir icebreak isugu yimaadaan maalinta Sabtida 3 bisha Abriil 2021 si looga wada hadlo hirgelinta heshiiskii 17 Sebtembar 2020 iyo 16 Febraayo 2021 ayaa lagu yeeray qoraalka ka soo baxay wasiirka warfaafinta Cismaan Abuukar Dube. si kastaba Puntland ayaa sheegaysa in shirkan uusan ahayn shir uu soo qaban qaabiyay madaxweynaha ee uu yahay shir ay soo qaban qaabisay beesha caalamka, taasi oo muujinaysa in is-aaminaada iyo wanaagii ka dhex jiray hoggaanka Soomaalida gabi ahaanba meesha uu isaga baxay, taasna ay muujinayso in xalka doorashada Alla subxaanahu wa tacaala uu saqiri karo, laakiin aysan muuqan saansaan xooggan oo iminka hoggaanka Soomaalida ay isku aaminayaan. Ethiopia ayaa mar kale xaalad xun gashay iyadoo lagu soo waramayo in qoomiyadda uu ka soo jeedo Abiy Ahmed ay bilaabeen xasuuqa qoomiyadaha kale ay u arkaan in khatar ay ku yihiin mustaqbalka. koox ka tirsan mucaaradka jabhadda Oromada Ethiopia ayaa dad ka badan 30 qof waxa ay ku dileen deegaanka Amxaarada ee galbeedka Wolega oo ka tirsan degmada Babo Gambel ee ismaamulka Oromada. dadkan la sheegay inay isugu jireen kuwa hubeysan iyo shacab ayaa waxaa dhex maray dagaal kaasi oo salka ku haya aana qabiil iyo muran ku saabsan dhul daaqsimeed.
colaadan oo muddo soo jirtay ayaa sii murjinaysa xiisada colaadeed ee qoomiyadaha Itoobiya ka dhaxaysa iyadoo horey loo caalwaayay xal u helidda qoomiyadaha kala duwan ee dalkaasi dega oo sanadihii ugu dambeeyay colaado ay ka dhex qarxeen. weerarkan ayaa kusoo beegmay xilli dowladda federaalka Itoobiya ay la daalaa-dhacayso colaada ka taagan ismaamulka gobolka Tigray oo lagu sheegayo xadgudubyo ka dhinaca xuquuqda aadanaha inuu halkaasi ka dhacay. dagaalka Tigray-ga ayaa waxaa ku lug leh maleeshiya Amxaara ah oo uu adeegsanayo Abiy Ahmed, kuwaasi oo xadgudubyo isugu jira dil, dhac, kufsi iyo kuwo kaleba u geystay dadka Tigray-ga ah. Amxaarada iyo Tigray-ga ayaa waxaa ka dhaxeeya nacayb ballaaran oo ka dhashay kadib markii Mille Zenawi oo Tigray ahaa uu xukunka ka tuuray Mengistu Haile Mariam kadib markii Tigray-ga talada ay qabsadeen tacadiyo ay u geysteen Amxaarada dhinacooda. sidoo kale Abiy Ahmed ayaa farqaha lagu dhagan yahay oo waxaa lagu qasbayaa in doorasho uu ka qabto dalkaasi, midaasi oo ah xor iyo xalaal. maxaa yeelay Agoosto sanadkii aynu kasoo gudubnay ee 2020 ayuu sharciga dhigayay in doorashooyin loo dareero. laakiin Abiy ayaa ku andacooday in coronavirus dalkaasi saameyn ba'an uu ku leeyahay, sidaa daraadeedna uusan awoodin in haba yaraatee uu doorashooyin qabto, halka dadka siyaasadiisa naqdiya ay arrintaasi si weyn uga soo horjeedaan. Villa Soomaaliya ayaa la ogaaday in ciidamo culus ay u diyaarisay inay geyso soodinta maamulka Puntland iyo Galmudug. arrintan oo abuuraysa walaac culus oo la xiriirta in halkaasi dagaallo ay ka qarxi karaan, iyadoo dowladda federaalka Soomaaliya aysan faahfaahin rasmi ah ka bixin ciidamadan iyo ujeedka halkaasi loo geenayo. saraakiil ka tirsan ciidanka gaarka ah ee militariga Soomaaliya ee Gorgor ayaa warbaahinta u sheegay in maalmaha soo socda boqolaal ka mid ah ciidankaasi la geyn doono qaybo ka mid ah gobolka Mudug. ciidankan iyo gaadiidkooda ayaa la qorsheeyay in la geeyo deegaan u dhow Galdogob oo ka tirsan gobolka Mudug. deegaanada ciidanka la geyn doono ayaa ka tirsan Galmudug, hase yeeshee waxay ku yaalaan soodinta Puntland iyo Galmudug. ilwareetyo ammaanka ayaa sheegay in ujeedka ciidankan loo geenayo Mudug ay tahay in culays lagu saaro Puntland oo ka mid ah labada maamul ee diidan amarada dowladda dhexe ee Soomaaliya iyo in madaxweyne Farmaajo talooyinkiisa la qaato. jawi colaadeed iyo saansaan aan wanaagsaneyn ayaa ka jira Soomaaliya, gaar ahaan Muqdisho iyo meelo ka mid ah gobolada dalka, waxaana aad looga cabsi qabaa isku dhacyo iyo dagaalo kale oo mar kale dalka ruxa. weli dowladda Soomaaliya kamaysan hadlin warkan aadka loo hadal hayo ee saacadihii ugu dambeeyay aad u soo shacbaxayay iyo ujeedka rasmiga ah ee laga leeyahay. Puntland ayaa dhawaan ku eedeysay dowladda federaalka in ay colaad culus ka horinayso qaybo ka mid ah ismaamulkaasi, isla markaana aysan marnaba u dulqaadan doonin in xadgudub lagu sameeyo maamulkeeda. iyadoona dowladda federaalka Soomaaliya la fahansan yahay marka la eego 4 sano ugu dambeysay siyaasadii ay ku dhaqmaysay inay raadinayso wado ay dhabarjibin ugu sameyso Saciid Cabdullaahi Dani oo ka mid ah dadka diidan nidaamka doorasho ee Villa Soomaaliya ay qorsheynayso. markana xog gaara, maxaa uu uga duwan yahay shirka beri ka furmaya xerada Afisyooni shirarkii ka horeeyay ee looga hadlayay arrimaha doorashada oo intooda badan fashilmay? marka la eego haatan iyo shirkan sida loo soo qaban qaabiyay, waxaa muuqanaysa in beesha caalamka ay gacan weyn ku leeyihiin xal u helida shirka iyo in uusan mar dambe fashilmin. wararka naga soo gaaraya xelada xalalne ayaa sheegaya in beesha caalamka ay sii wadaan dadaalada xooggan ee ku aadan sidii xal loogu heli lahaa muranka ka taagan dhinaca doorashada. xogtaan helnay waxay sheegaysaa in beesha caalamka ay ka shaqeysay in mar kale aysan ku kala tegin hoggaanka Soomaalida shirkan, isla markaana awoodda ugu badan ay saarayaan in ajendaha iyo wax walba la isla meel dhigo ka hor inta xaaladdu aysan noqon mid faraha ka sii baxda. haddii shirkan beesha caalamka awoodiisa ay la wareegto, waxa ay la mid tahay in hoggaanka Soomaalida iyagu ay tashan waayeen oo loo talin doono. laakiin shaki badan ayaa weli ku jira in Villa Soomaaliya ay wado kale u mari karto in shirkan uu fashilmo, sidaa daraadeedna baarlamaanka ay qaataan go'aan la xiriira in muddo kordhin la sameeyo inta dalka firaaq dastuuri uu ku sii jiri lahaa. hoggaanka Soomaalida ayaa kala shaki xooggan uu soo kala dhex galay.
saddex maamul goboleed ayaa taageersan villa Soomaaliya kuwa oo maalmihii ugu dambeeyay la saadaalinayay inaysan sii taageersanaan doonin villa Soomaaliya oo ay isaga hari doonaan maxaa yeelay waxaa soo baxday qorshe la xiriira in villa Soomaaliya ay damacsan tahay in saddexda maamul ee taageersan villa Soomaaliya ee kala ah Koonfur Galbeed, Galmudug iyo Hirshabelle haddii madaxweynaha 2 sano oo muddo xileed ah oo loo dheereeyo haddii uu helo inuu ka takhalusi doono isla markaana rag kale uu keensan doono. taasina waxay keentay in kalsoonidii ay ku qabeen Farmaajo madaxda maamul goboleedyadan ay dib u gorasho sameyn karaan. ugu dambeyntiina gal dacwadeed culus ayaa laga gudbiyay madaxweynaha muddo xileedkiisu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, taasi oo lagu warmayo in ay salka ku hayso xasuuq lagu eedeeyay inuu geystay 4 sano ee uu xafiiska joogay. arrintan ayaa aad looga hadalhayay saacadihii ugu dambeeyay baraha bulshada. xildhibaan hore Xasan Xaaji oo ka tirsanaa baarlamaanka golaha shacabka haddana ah musharax u taagan xilka madaxtinimo ee Koonfur Galbeed ayaa sheegay in la gudbiyay dacwad ka dhan ah Farmaajo. waxa uu sheegay xildhibaanka inay soo gabagabeeyeen dhammaan eedeymihii ku saabsanaa waxyaabaha la xiriira doorashadii Koonfur Galbeed 2018 wixii ka dhacay sida dad shacab ah oo halkaasi ay ku dhinteen iyo in xabsiga loo taxaabay Mukhtaar Roobo Cali Abu Mansuur. sidoo kale waxa uu sheegay in qareenada ay ka gudoomeen gal dacwadeedka loo haysto Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ciidamada Ethiopia ee hoos yimaada AMISOM kuwa oo iyaguna loo haysto inay qayb ka ahaayeen falkaasi. alama hadii xog ururin dheer kadib waxaan soo gabagabeynay dhammaan eedeymihii ku saabsanaa Koonfur Galbeed Soomaaliya doorashadii ka dhacday 2018. qareenadii waa naga gudoomeen gal dacwadeedka loo haysto madaxweyne Farmaajo iyo Section 3 AMISOM kuwaasi oo xasuuqay 15 qof oo shacab ah kuwa oo dibadbaxayay faragelinta doorashadana diidanaa iyadoo doorashadu si qasab ah ku dhacday. 15 qof oo shacab ah ayaa ku dhintay doorashada maamulkaasi iyadoo tiro ka badanna ay ku dhaawacmeen, waxaana intaasi ka sii darneed in dad badan loo xiray arrimaha la xiriira isku dayga ay ku diidanayeen in dowladda federaalka Soomaaliya sida ay doonto wax u dhacaan. xildhibaan Xasan ma uusan sheegin halka dacwadda uu u gudbiyay iyo cidda ay si toos ah u qusayso dacwaddaasi ee bilaabaysa. dad badan oo reer Koonfur Galbeed ah ayaa ku eedeynaya madaxweyne Farmaajo in sharciga uu ku tuntay markii doorashada ay ka dhaceysay maamulka Koonfur Galbeed oo uu ku soo baxay Cabdicasiis Laftagareen. warkii caalamka waa naga intaa waad ku mahadsan tahay daawashada warkeena. muuqaalkan haddii aad dhamaysatay la sii wadaag asxaabtaada kale. mahadsanid.